بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibada qiimaha badan waxaan rabay muuqaalkan inaan ku yar sharxo aan dul istaago fursad euro USD ardayda qaybtood ay khasbayeen sababta marka muuqaalkan aan public soo dhignay waxaan dareensanahay jahwareerka ka jira marka candlesku noocan oo kale u dhaqmaan in ardayda macaamilka ay la macaamilayaan marka tradekaas ama beerkaas ay dul joogaan inay aad ugu adkaato fursad baa halka ka jirtay meeshaan lagu yimi waa zone number 1 marka golden zone-ka laga reebo lacagtu meesha ay ka laabatay saa ujeedaan waa golden zone oo 0.75 waa fibkeena meel inoogu sadgaraysan mararka uu in anfaco marka waa markan oo kale oo tusaale haddii aynaan fibka isticmaali lahayn golden zone-ka 0.75 ka ah zonku inaga fogaan lahaa oo zonka caadiga ah ee ka muuqda hadda lacagtan waa halkaan waa halkaan zonka ka muuqda halkaas weeye ma soo gaarin marka lacagtu zonkii oo waxay ka laabatay meel dhowr bib u jirta zonkii ayay ka laabatay 0.75 ka golden zonka wuxuu inaga anfacayaa markaas oo kale lacagtu aanay zonkii meel aan zonka ahayn ay ka samaysanayso structurekeedii iyo qaabkii ay lacagtu u dhaqaaqi lahayd oo reaction u samayn lahayd ayuu inaka anfacaa golden zonku markan oo kale marka aragnay lacagtu inay meesha ay ka laabatay ay halkan tahay oo lacagtu ay dhaqaaqayso ayna zonka u soo soconin hadda inaan zonka u soo hadda kadib waa laga yaabaa inay timaado oo firaaqa meeshan ku jira ay soo buuxiso laakiin now zonkii lagaba laabanay meel u dhow zonkii baa laga laabtay waxaan rabaa marka inaan u helo reason aan lacagtan ula macaamilo oo tradekan aan u baygarayo fursad bay aan u raadsado maxaan samaynayaa marka golden zone oo wax walba ka muhiimsan oo ah zone marka lacagtu timaado ay khasab tahay inay reaction ka samayso fibkeenaan dhiganayaa lacagtu meesha ay ka dhaqaaqday ilaa meesha u sarraysay ay gaartay 0.75 meesha ugu beegantahay waa meesha golden zonekayga ah waa laabudda baan idinku yiri golden zone hadday lacagtu timaado inay reaction samayso waa sababtaas marka sababta aan uga duwannahay dadka zonka iyaga oo qallalan ku tiradgareeya ee aan isticmaalin golden zoneka iyo fibka meelo iyaga aanay fursado ugu jirin inay inaga fursado inoogu jiri karaan haddaan halkaa taa kaga imaado golden zoneka marka 0.75 halkaas inoo ku beegan yahay youtube-keenay ku jirtaa telegramkeenay ku jirtaa fibka iyo sida sitikiisa loo hagaajisto golden zone waxa uu yahay waxaas oo dhan waa sharaxay hadda waqti badan ku lumin mayno fibka markaas aragtid 0.75 halkan kuugu beegan yahay halkaas ayaa marka waxay ku noqonaysaa meesha zonekaaga taas waxay kuu sheegaysaa marka inaad la haysatid lacagtu meesha ay ka laabanayso way marka aad soo hesho zonkaaga aan ogtahay lacagtu inay kor u socoto qawaaniinteena qodobka kood muxuu ahaa inaad trendiga soo ogaatid trendiga waa soo ogaaday oo dee trendi hoos u socda baa la soo jebiyey suuqani waa uptrend waa kow talabaad zonkaagiina waa soo heshay oo golden zone baaba soo heshaba golden zone ayaa soo heshay intaa markaa samaysid maxaa samaynaysaa 15 minute-ka aadaysaa 15 minute-ka markaa aadid waxaa raadinaysaa liquidity-gii waa heshay maxaa liquidity ku xigay inaa manipulation manipulationkii waa heshayoo liquidity-gii waa la manipulate gareeyey oo dhaqaaqan awoodda u badan markii lasoo dhaqaaqay lagu nastay liquidity-gaaga korkiisa maxaa marka mitigation move-kii baa yimiyo waa la manipulate gareeyey liquidity-gaagii oo zonkii baa lacagtii lagu geeyo golden zoneka ahaa sidaa markii waxaan aan akhrinayo oo dhan waa fahmi kartaa haddaa istaraatiijiyadan oo istaraatiijiyadda ugu fiican forex trading lagaga shaqaysto muuqaaladii hore aan ka duubay aad daawatay waa fahmi kartaa kumana dhibayso waa istaraatiijiyadda isticmaalaan institutional tradersku istaraatiijiyadda isticmaalaan market makersku iyo dadka suuqa rangareeya oo waxa weeye faa'iidooyin badan lagaga samayn karo kuna anfici karta runtii liquidity-gii
marka mitigationka lagu sameeyey ama la manipulate gareeyey ama la marin habaabiyo jahwareerinta lagu sameeyey dadka retail traderska aan fahansaneyn istaraatiijiyada ay ku trade gareeyaan institutional tradersku lacagta waxa la geeyey zoonkaagii oo ah 0.75 0.75 markii la geeyey maxaa sugaysay in manipulationku 3 dhaqaaq buu ahaa dhaqaaqii labaad ku dhaco oo lagu la jabiyo counter trend break inuu ku dhaco counter trend qodobkeena shanaada inuu ku dhaco waana counter trend break iyo in la soo jabiyo dhaqaaqa lagu dhitigaaga jabiyey oo manipulationka dhaqaaqi si labaad uu ku dhaco waa dhaqaaqa labaad ee manipulationka weeye dhaqaaqa saddexaad waxa weeye in interiga lagugu laabto interiga intaan laygu laaban maxaa dhacay marka waxaad eegaysaa lacagtu sidee bay ku jabisay liquidity-ga counter trend-kaaga lacagtu sidee bay ku jabisay counter trend-kaaga okay haddii lacagta aan gelayaa ay uptrend tahay ama fursadda aan suuqa u gelayaa ay uptrend tahay oo suuq uptrend aan gelayo halkaanina ay golden zone-kayga igu beegantay si fiican ila soco insha Allah halkaana golden zone-kii aan fursadda ka raadinaya ay igu beegatay waxa aad sugaysaa waa maxay in counter trend-ka ku soo laabto oo zone-kaagii lagu yimaado zone-kii marka lacagti waa la keenay soo ma aragtid zone-kii lacagti waa la keenay waxaana arkayso waa 15 minute counter trend tanna waa dhaqaaqii weynaa oo higher time frame higher time frame trendigayga ahaa oo jihada guud ee suuqa u socday weeye kanna waa counter trendkii waa dhaqaaqii yaraa ee soo laabanayay ee lower time frame-ka oo 15 minute-ka aan ka eeganayna wey zone-kii lacagtii markii lagu keenay halkan dhaqaaqan hoos u socda ee 15 minute trendiga ah waxaa ka soo horjeeda oo lugtan 1 hour-ka ee impulsive-ka ku hoos jira dhaqaaq kale oo 15 minute baa ku hoos jira dhaqaaq kale oo 15 minute baa ku hoos jira dhaqaaq kale oo 15 minute baa ku hoos jira way dhaqaaqan 15 minute-ka ahaa marka waa la soo jabiyey suuqa hadda awoodiisa waxa haysta marka sellerska ayaa haysta oo hoos buu u jeedaa weeye suuqan waaye maxaa u baahan tahay mar haddii aad zone soo heshay higher time frame-kiina soo heshay weli ma gaarin meesha aan u socdo oo aan sharaxaad haddana goolada leeyahay weli maanan gaarin liquidity waa u baahan tahay marka si lower time frame-ka inta u degtid liquidity ayaad u baahan tahay low liquidity marka waa haysataa maxaa u baahan tahay marka in counter trend-kaaga lagaa jabiyo oo awoodda sellersku suuqa ay ku leeyihiin lagaa istaajiyo ayaad u baahan tahay awoodda sellersku suuqa ay ku leeyihiin in lagaa istaajiyaa u baahan tahay waaya lugtaan marka haddii sidaa lagugu jabiyo fiirso haddii hal mar sidaa lagugu jabiyo waxaa u baahan tahay oo keliya in entrigaaga lagu soo laabto kadibna lacagtu ay baxdo ayaad u baahan tahay oo entrigaaga halkan ay kuu noqonaysaa entrigaaga labaad halkan kuu noqonayaa waxaa keliya u baahan tahay inaad fursaddii qaadatid markaas inaad fursaddii qaadatid ayaa u baahan tahay waa marka hal dhaqaaq lagu jabiyo counter trend-kaaga ila soco yaa waa marka hal dhaqaaq lagu jabiyo waxay ardaydu ku wareertay marka trade-kan sida muuqata liquidity ee counter trend-ki waa la jabiyey waxaan oo dhan aan hadda sharaxayay way soo dhaceen oo halka way ka wada muuqdaan oo trendigii weynaa 1 hour-ka waa haysataa zone-kii waa haysataa liquidity-gi waa haysataa liquidity-gi waa la soo jabiyey counter trend-kiina sidoo kale waa la jabiyey maxaa u baahnayd in counter trend-ka hal dhaqaaq lagu jabiyo ayaa u baahnayd counter trendiga in hal dhaqaaq lagu jabiyo ayaa u baahnayd laakiin laguma jabina maxaa lagu jabiyey u fiirso maxaa lagu jabiyey wax yar dulqaad
waayahay iga raali ahaada sida kuu muuqata halkan markaan idiin sharaxaya maxaan idin idhi counter trainkan soo laabtay hal dhaqaaq baa lagu jebiyey automatic baa waxaa loogu soo laabtay intrigaagii kadibna waa la baxay oo impulsivekaagii baa ku yimaaday laakiin tradekan waxaan ilaa halkan dhaqaaqila tradekan intaanoo dhan ka dhaqaaqila intaanoo dhan tradekan ka dhaqaaqila tradekan intaan aan goobada idiin geliyo ka dhaqaaqila oo consolidationka iyo kulaalaashada intaasoo dhan samaystay maxaa ugu wacan weeye waxaan rabnaa inaan isla eegno maxaa ugu wacan maxay lacagta u bixi weyday haddii counter trainkii la jebiyey dhaqaaqan soo laabtay ama halkan ha laga qaato ama halkan ba laga qaatee muxuu u iman waayey impulsivekii si degdeg ugu iman waayo lacagtu saan oo dhan ugu rafat taasaan rabaa inaan idiin sharo waana ku jahwareersanaydeen tradekan waana sharaxnay wax badan zoomamkeenna way ku jiraan wayna ka buuxaan waaya laakiin tradeska sidan fudud baa rabtaan mar walba inay idinku yimaadaan oo aad suuqa ula macaamishaan in counter trainkii lagu jabiyo islamarkaba lagugu soo laabto intrigaaga islamarkaba tradeka aad qaadatid oo aad bay karaysid waaya maxaa dhacay marka counter trainkaagi horta halkan in laga jabiyaa ka rabtaa meesha rabtid in lagu jabiyo waa halkan waaya maxaa lagu jabiyey marka u fiirso waxaa lagu jabiyey higher high higher low higher high higher low higher high trendi baa lagu jabiyey 15 minute soo ma jeedid trendi caadi baa lagu jabiyey oo kor u socda baa lagu jabiyey maxaa ka hor yimid trendigii kor u socday isla trendi hoos u socda baa isagii soo jabiyey isla trendi hoos u socda baa isla isagii soo jabiyey xagee laga soo jabiyey isagii xagee laga soo jabiyey higher lowgana la soo jabiyey suuqaani kor buu kugu socday soo ma isla isagii baa la soo jabiyey hadda hoos baa loo socdaa suuqaan marka 15 minute uptrendka kor u socday la soo jabiyey oo sellersku isla markiiba awoodda ay la wareegeen fursad bay ama ka raadinayaan maya ilaa halkaa laga jabiyo fursad bay ay kama raadinaysa ilaa la jabiyo 15 minute dhow trainkan soo laabtay in laga adkaado dib loo jabiyo ilaa isaga halkaa dib loo jabiyo fursadda bayda ama raadinaysa fursadda bayda ma raadinaysa isku day inay fahanto order flowga mar walba inaad la socotid waa muhiim market structure-ka inuu kuu qiimaysan yahay fahansantahay qaab dhismeedka suuq u dhismayo iyo candleskaasi say u dhaqmayaan waa inaad fahmi karto waa waxa ugu muhiimsan qodobka ugu weyn ugu muhiimsan forex trading oo dhan wey inaad fahansantahay candlestickgaasi dabeecadahooda say u dhaqmayaan si u dhismayo marketka okay halkan markaan lahayn counter trend break baan u baahannahay sababta counter trend break aan ugu baahannahay maxaa weeye maadaama fursad bay aan rabno inaan galno waa in sellerskan 15 minute down trainkan hoos u soo socda waa in laga adkaado iyaga horta macnaha aan ku jiraa counter trend break waa taas weeye waa in buyersku awoodda la wareegaan buyersku awoodda laga leeyahay suuqii ma bay garan karo iyadoo sellersku awooddii leeyihiin suuqii ma bay garan karo maxaa rabnay marka innaga lacagtan saa u jeedaan counter trendki waxay ku jabisay qaab trendi ah bay ku jabisay qaab trendina bay ku jabisay mahma iyadoo qaab trendina ku jabisay lacagtan marka koowaad rajadaadu halkaa inay ahaataa la rabay inta aynan halka soo jabinin inta aysan lugtaan higher lowga aysan soo jabinin rajada aa lahaatid inay halkan ahaataa la rabay inaad tiraahdo halkaas lacagtan inay halkaa ahaataa la rabay oo halkaa trendigaaga aa ka dhistid sababtu maxay tahay dee buyerska la jirtaa fursad bay ayaa raadinaysaa adigoo fursad bay raadinaya haddii aad tiraahdid ka waran trendigan dhan ee higher high higher low higher high higher low higher high ga samaysanaya in haddii la jabiyo
ma arkayo waa iska indha saabaya oo fursad bay aan weli sii raadinaya macquul miyayta buyerska haddii aad la jirtid halkaasi lugtaasi muhiim bay ku ahayd inaad ku xisaabtantid waaya maxaa dhacay marka lugtii in la jabiyo selleriska awoodda la wareegaan meeshii marka waa ka kacaya hadda maxaan leeyahay selleriska waa in laga adkaado oo buyerska in awoodda suuqa la wareegaan waa in halkaa la jabiyo doonaya markii hore maxaan doonaya halkan inaan la jabin soo ma oo fursadda bayda halka inaan ka dhistaan doonayay waa la jabiyey soo maaha sellers baa awoodda la wareegay still fursad bay amiyaa ku dhegana maya waa inaan idhaahdo halka waa in la jabiyo sababta fursaddan aan u qaadan weynay sababtaas weeye sababta ardaydii khasabtay ee qaadatayna ay ugu jahwareereen ugu rafatay stoploss kagama dhicin ninkii hayay tbgeena koowaad halku ahaa way ugu dhacday qofkii hayay oo aan ka bixinin stoploss kagama dhicin laakiin wuxuu qaatay trade aan shuruucdii iyo qawaaniintii waafaqsanayn qofkaas trade aan shuruucdii iyo qawaaniintii aan tradeska ku qaadan istaraatiijiyadeen aan waafaqsanayn ayuu qofkaasi qaatay laakiin stoplosska kagama dhicin still saa ujeedaan stoplosskeenna dee zonka meelihiisaasaynu dhiganaa tbgeena koowaadna waa halkaa already tbgii bay ugu dhacday hala warwareegto inagu waxaan diidanahay waxa weeye trade saxsan qawaaniintiisu saxsan tahay si saxa u qaadatay intaan in la eg ma rafto oo idinka arkay xitaa trades waxaan qaadanaa isla marka aan galno 7-8-9 kandhal oo isku jihada aynu trade-ka u galnay ah oo isku xiga aan hal kandhal oo opposite soo dhex gelin waxaan u malaynayaa inaan waadixiyey qawaaniinta trade-ka aa ku qaadanaysid meesha jahwareer ku taagan yahay ugu muhiimsanina waa intriga markay lacagta kusoo laabanayso waxaan oo dhan dadku way wada garanayaan liquidity-ga zonka sida lagu soo helayo counter trend break-ka waxaas oo dhan laakiin marka ay noqoto fursaddii bay garee ama sel garee oo mt5-kaaga intaa gashid bay ama sel mid uun dheh that time waqtiga aad bay leedahay ama aad sel leedahay way waqtiga problemka ugu badan uu ka taagan yahay isagana waxaan u malaynayaa inaan mugdigii ka saarnay trade-kan very complicated trade buu ahaa ardaydu aad ugu jahwareereen dhaqaaqi waayey at the same time ardayda haysay uu tb-ga ugu dhacay laakiin maxaa khaldanaa order flow-gay mar walba kasoo horjeedeen order flow-ga ayay mar walba kasoo horjeedeen iyagoo arka higher high higher low higher high higher low higher high ayay waxay sugayaan in intriga loogu laabto oo hal meelaha kana intriga ka dhigteen kadibna lacagtu waa soo laabatay meeshii ay markii hore markii ay maraysay dib bay u noqotay oo ilaa halkaanay tagtay iyadoo sababtay in order flow-gii markaas socday oo uptrend-ka ahaa ay kala wareejiso oo sellerska awoodii u celiso kadib maxaa dhacay maadaama zonku inoo saxsan yahay liquidity fiican meesha jiro trendiga lacagta uu saxsan yahay oo uptrend uu yahay marna ma dhici karto lacagtu inay higher low-gan jabiso marna ma dhici karto waxyaalo kale ku ilaalinaya laakiin adigu against market ba ahayd qof shuruucdii khaldamay laakiin waxyaalo kale ku ilaalinaya oo aad baratay oo istiraatiijiyada kugu jira ku ilaalinaya maxaa ku ilaalinaya kow zone muhiim ah baa lacagtii zonkaagii ka dhigatay istiraatiijiyadani markaa kule waa intaas qodob oo isku dhex jira oo qodob ka powerfulsan yahay oo ilaalinayo taasaa u sabab maxaa ku ilaalinaya trendiga iyo market structure-kii guud baa ku ilaalinaya oo lacagtu waa uptrend guud ahaan lacagtu waa uptrend lower higher low-gaagiina looma dhowa zone fiican oo 0.75 oo golden zone abaa trade-kii ka qaadat intaasoo dhan baa ku ilaalinaysa brother liquidity baa heshay counter trend break-na waa heshay si rabtid baa ku heshay waxa kaa khaldani kaliya waxa weeye sidee baa counter trend break lagu sameeyey iyo order flow-ga wax yar oo khuseeya oo lower time frame-ka waliba ah baa kaa khaldan taasaa sababtay trade-ku intaas kugu rafto laakiin inta kale oo dhan way ku saxsan tahay brother waana ta sababtay iyadoo khaladkaas aa ku jirtid in lacagtu tb-ga kuugu dhacdo aan still stop-loss kaaga dhigin waa mahadsantiin waxaan u maleynayaa istiraatiijiyadan intiina baratay inay 100% ku qanacsan tahay
ku faraxsan tahay faa'iido ku hayaan akoonna ku baasiyaan withdrawals ay ku sameeyaan guul baan idin rajaynayaa saan idin sheegay bishan 11 iyo bisha 12 waxaan soo saari doonaa maalqabeennada mustaqbalka oo da'yar ah oo Soomaaliyeed waana mahadsantihiin soo dhawaada waa ku soo biiri kartaan telegramkeena publica Hanaqaad Academy profileka tiktokeena wuu saaran yahay youtubekeena wuu yaalaa descriptionka saaxiibo diyaar u ah in habeen iyo maalin ka shaqaynaya sidee lacag loo sameeyaa ma wax kale ka shaqaynayn trade ideas wax walba waad ka heli doontaan Hanaqaad dhalinyaro script taagan Soomaaliyeed waxa weeye wuxuu qof walba xunuftiisa la jecel yahay walaalkiisana la jecel ayaa meeshaas diyaar idinku ah استراتيجية أنا نستعملها إنه institutional trading strategy أما law and order واستراتيجية وفي عن إلا شقيستو forex trading استراتيجية وفي عن إلا شقيستو forex trading العقل لو سميه powerful وليبا very powerful runtii maxaa ku harsanaa marka in yar baan ka tegay baan u malaynayaa haddii halkan la jabiyay maxaa hadda doonaysa baan ku yiri in halkan lagu jabiyaa doonaysa way ku dhacday still iyadoo trendy waliba laftigeedu ku jabisay in iyadii la jabiyo laakiin markii la jabiyay dhaqaaqan awood badan baa lagu jabiyo TB1-kaygii baa la jabiyay oo higher high-gaygii baa laga kormaro lacagtu higher high cusub bay samaysatay maxaa ku haray marka isweydii dadka mar haddii tanaan doonaya in la jabiyo waa la jabiyo dhaqaaqan awood badan lagu dambeeyay oo mitigation-ka u eg istiraatiijiyada suuqa la jirin ayaa lagu jabiyay still iyadoo la jabiyay laakiin maxaa la jabiyay higher high-gii lacagta oo target-kaygaba ahayd koowaad ayaa la jabiyay ma sii geli karo marka waa inaa fursadda kale iyo soo laabadka dambe iyo counter trend-kan hadda socda waa inaa laabadkiisa ka faa'iidaysta insha Allah waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.